بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. maanta waxaan ka hadlaynaa maasha Allah waxaan ka hadlaynaa maanta menopause waxa la yiraahdo menopause caado istaaga marka dumarka caadadu ka go'do shaahan waana magaciisa idin sheegay waan soo karinaynaa maasha Allah miskiin lagama aha waxyaabo badan oo maanta madfici ugu weynaa ee ilaalin lahaa ee ina caawin lahaa dumarka caawin lahaa baan idin soo wadaa maanta maasha Allah ila socda waa waqtigeed dumarku ما شاء الله شاهي waa inoo soo bislaaday caado wareerka ama caado goyska waxa loo yaqaan waa waqtiga dumarku ugu jilicsan yihiin cudur oo dhan baa ku soo xaadira cirkaas la ila baxay ma maqli jirtay lafa xanuun jir xanuun caado wareer wax aan ku dhicin ma jirto inay halis waxay u yihiin inay cudurro aan hore u hayn jirin u hayaan sida dhiikarka macaanka xataa hadduu jirkooda kusoo jiray xanuunkan wuu soo saaraya waxa la yiraahdo waxa jirkeena ku jira waxa la yiraahdo hormones dheecaanadaas marka ay joogsadaan ama ovariska waxa loo yaqaano ugxansidaha uu joojiyo ugxantii bishii soo dayn jiray waxa ku dhacaya dunidaas oo dhan qalal waxa la yiraahdo ku dhacaya dabadeedna meeshii markay qalasho waa markay odayaashuna oran jireen islaantii way urursatay oo ay guurdoonka noqon jireen ay guurka labaad soo diyaarin jireen marka fahan la'aantuna way ka jirtaa dumarka iyo hooyooyinka Soomaaliyeed dhibaatooyin badan baa la kulma حتى إن أي كذا لا كذا ما بقول dhici karta waxaan idin hayaa waxyaabo badan oo idin ka caawinaya ma sha Allah wuxuu xaamo maqashay ma martay qof aan waxba ka aqooniyo waxba kaaga sheegin qofkii wax ka yaqaan wax kaaga sheegi kara ama soo maray isagu oo wixii wax ka qabsaday oo ma isagu isku daweeyay ma sha Allah marka dhamaantiin waxaan idin leeyahay xanuun marka aynu ka hadlayno menopause ama caado wareer ama caado istaag oo riximku qalalo riximka maaha ay meeshii ay kusoo dhacaysay ugxantu qalasho waxaynu u baahanahay inagu inaynu iscaawino waa markii waqtiga hooyadu ugu baahi badan tahay inay nafteeda caawiso waa markay caafimaadkeeda inuu soo jeegsato waayo inaad beerkaaga ilaaliso waa waajib waayo dheecaanada iyo ovariskana aan idin sheegayo caadadii iman jirtay xanuun oo dhan jirku wuu shaqaynayay marka meelaha qaar markay shaqada gabto waa inaad caawimo dheeraada siiso dadka kaliya istaagaan dadka beerku xumaado dadka soo inay iyaguna naftooda inagana marka caadadu istaagto waa in nafteeni halkii ay waa in aynu doonano wixii inaga caawinayay marka waxyaabo badan oo inaga caawiyaan inoo hayaa maanta ma sha Allah inta kale ee taqaana inay hooyooyinka u soo gudbiyo inaanay hooyana aamusnaan dhibaato ku gaadhin oo aanay safar garaynin baan rabnaa oo aanay silent aanaynu arrinkeenu noqon shaah la yareysta maaha aad iyo aad marka jirku marna qabow noqdo marna kulayl noqdo marba dhinaca loola cararo jirkeena ma sha Allah waynu ognahay waxa dareemaysaa kulayl waxa dareemi dhidid habeenkii oo dhan ka soconaya diiqad fara badan culays fara badan adigiyo jaha wareera culays kale oo family xataa kaaga yimaado xaqii reerkii odayga iyo dhibaatooyin kale oo kaaga yimaado arki kartaa shaahan waxaan ka sameeyay bahalka la yiraahdo sage waad arkaysaan ma sha Allah magac miskiin lagama aha sayidkaasi waa u dawo shaahiisu aad u cabba waa waqtiga iyada aynu inaynu shaahiyada kale ka go'doono ay inoo fiican tahay oo waan shaahiyada madow iyo waxa shaahiyada dalkeeni buuctireenka bahalkii la oran jiray talow bahalkani ma kaasaaban isleeyahay anigu shaahiyadaas oo kale marka aynu aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin waxa kale oo idin hayaa waxyaabo kale oo aad iyo aad inoo caawinaya kan laftirkiisu waa shaah kale kuma maylka shaah la yiraahdo waa isagoo organic oo soo iibiyay dhirtaas inaad badsato had iyo jeer muhiimadu waa taa dhirta inaad badsato kan oregano laftirkiisu ma xuma oo chamomile kana marka uu hoos u dhaco loo cuno oo beerka iyo hormoneskaas oo dhan buu kor u soo qaadaya vitamin B6 baa ku jira waad arkaysaan baan u maleynaya inaan kor u hayaba looma baahna inay kamaradu idin tusi karto insha Allah Ilaahay ka rajaynaya ma sha Allah waad arkaysaan waa isaga isku wada jira waxa kale oo ku sii jeclaaday kan sida maaha fitamiinadan adag ee dhagaxa ah kan waa la calalinaya wixii la calaliyana uu ka wanaagsan yahay waa calalinaysa waxaan ku jeclaaday waa calaliska waayo kuwa kale waa beerka marka fitamiinadan beerka sifayn badan iyo hawl badan laakiin kan afkaaga ilkahaaga ku calalinaysa aad iyo aad baan u jecelahay kan uu fiican yahay ma sha Allah waxa kale oo idin hayaa kan kaas waa qaali oo aad buu qaali u yahay laakiin kan waa number 1 isaguna marketka waxa yaala waa ninka arkaya waxa ku qoran waxa ku jira soya sage green tea intuba way u wanaagsan yihiin marka caado goyska dumarku ku jiraan ma sha Allah
shaahiyan ka sameeyay baa kan ahaa soo maaha marka sayjka shaahiisi waan iga imka sameeyay waa kan isagii oo budo ah oo idin tusay marka inuu caadada u wanaagsan yahay waxaad ku garataa wax meel kasta waa ku jira xataa fitamiinadiina waa ku jira marka waad arkaysaan idinkuba tuugna idinkama xado waxa kale oo idin hayaa bahalkan oo la yiraahdo black cohosh aad buu isaguna ugu wanaagsan yahay waa dhirtay ka yimaadaan menopause-ka hot waxa loo yaqaano kulaylka jirku tagagagac ku odhanayo oo kale habeenkii markaad inaad dhidido oo kale marka waxa isbedelaya jirkaaga oo dhan baa wax iska bedelayaan marka diiqada oo dhan waxaas oo dhan nervous systemka oo dhan buu caawiyaa waana ku qoran tahay qofkii akhriyi karaya way ku qoran tahay nervous systemka iyo waxaas inuu caawiyo oo uu relief yar ku siinayo marka inaad kaga raysato inaas coconut oil magac miskiin la vitamin E gana waa inaad horta number 1 qaadato marka aad xanuunadaas ku aragto saasaad u marinaysaa maasha Allah ha ka daalin dawo dhakhtar bixiya wax kama tarto meesha qaleylka laga ilaalinaya qaleylka ayaa laga ilaalinaya gudaha wax ma marinaysid laakiin dusha sare biyaha badan markaad istijo fara badan biyaha gacmaheen hadaanaynu cream maninin siday noqdaan qaleylka faraha badan waxay keenayaan infection waxay keenayaan bariban indiya tagnay markaasa saliid baa wax walba dul taala inay saliidu dawo tahay wax badan baa laga ogaaday kaadidan lala cararayay rafaadka dumarka haysta waxana ka dawo ah maasha Allah coconut bari wixii aad hayse ee fiican ee original xoolaha ka soo ee dufana ha isku gabin hooyo aniga waa iga talo waa markay dumarku midabku ka tago nuurku ka tago ee igu adag igu jilicsan yihiin timaha ka daata midabka ka taga haara ay yeeshaan pigmentation cuntada bedeladeeda aad iyo aad waxa baruurta la inaad iska dayso khudrad badan cunto wax green badsato oo cagaarka badsato oo aad iska noqoto bakayl oo kale bakaylaha khudrad badan